Assalaamu calaykum asxaabay. Halkan waxaan idinkugu haynaa konton muuqaal oo aan la rumaysteen haddii aysan kaamirada duubi lahayn. Haddaba ku soo dhawaada muuqaalkeena aadka u xiisaha badan asxaabteena qaaliga. Iska qaadidda sawir selfie ah ama muuqaal ayadoo ay gadaasha ka jirto duufaan daran waa mid wada tahalisteeda. sidoo kale qofkan inuu isaga soo tuuro xarig fiida sare ee joogan kadibna uu isaga qaado muuqaal sidan ma ahan mid uu ku dareemayo jahwareer. Tijaabadan waxay noqon doontaa mustaqbalka dhow mid inoo suuragelisa in lagu helo dooni iyo diyaarad isku jira oo loo adeegsan karo socdaalada badda iyo hawada. mashiinkan oo habeynta biraha sida loo rabo waxay ku qaadanaysaa wax ka yar daqiiqado. dhismayaasha guryahan ku yaala wadada dhinaceeda uma dulqaadan roobkii awoodda badnaa ee ku dhuftay. markii aad u fahamsan tahay isku dheelitiridda walxaha waad ka guulaysanaysaa cufisjiidadka dhulka sida ninkan oo kale. Alabama waxaa laga soo helay gaari ka guulaystay caqabadihii cufisjiidadka dhulka. muuqaalkan waa mid keenaya inay cabsi weyn sii qaadaan dadka qaba ka cabsashada ku duulista diyaaradaha. shimbiraha badda waqtiyadan oo kale waxa ay u tahay fursad dahabi ah maxaa yeelay waxa ay si fudud kula baxayaan kalluunkii ay soo jilaabeen maraakiibtii kalluumaysiga. shanqarta dhawaaqyada iyo jabaqda ka soo baxda hawshan laga hayo gunta biyaha hoostooda waa mid ay dhagahaada ku dareemayaan jawi cajiib ah runtii. sidoo kale haddii aan hoos ugu sii baxno halkan dadka qaar waxaa ku siyaadaya foobiyada ama cabsida weyn ay ka qabaan gunta biyaha. helikabtarta iyo baabuurta dabdamiska waa ay ku guuldaraysteen daminta dabkan aadka u weyn ee ka kacay halkan ayadoona ugu dambeyntii xal ahaan loo arkay in loo soo diro diyaaradan aadka u weyn si ay u damiso. markii ay jiraan duufaanada wata roobka ka qaadidda hawada muuqaal sidan oo kale oo soconaya saacado kadibna loo habeeya habkan waa muuqaal ku dareensiinaya sidii inay halkan ka jirta jawi aan caadi ahayn runtii. waa kumanaan dalxiisayaal u dhashay Shiinaha oo ku qaadanaya waqtiyo qurux badan goobtan oo ah meel lagu abuuro hirarka aad moodayso kuwa ka kaca badda. inaad sidaas u cabsiisa intaas oo bolobolooyin ah ma ahan mid aad xakameyn karto markii ay ka baxsadaan. xayawaanka waxaad moodaa sidii inay maanta u tahay markii ugu horeysay ee uu arko baabuur.
inkastoo uu waayay dooni raaxo oo uu ku qaato waqti cajiib ah haddana waa mid ismaareeyay qofkan. kooxda debdemiska waxaa lagaga fadhiyaa mar walba inay xal u helaan dhibaatada. qofkan kama baqayo jahwareer maxaa yeelay waa jahwareerihii la qabsaday waxa uu samaynayo. hore ma u aragtay gaari afka hore ka sii daaya qaaca. darawallada aadka u xirfadda badan ee kaxaysa gawaarida waa kuwo isugu faana siday u hagaan gawaaridooda ilaa ay faan ku gaareen sidaan. idaha waa mid ku soo qatalmay halkan. waa muuqaalka nooc ka mid ah aqdabuudka ku nool gudaha badda. maxaad samayn lahayd haddii ay kaa soo dhacdo kabtaada adigoo hawada ugu jira sidaan? kani waa dhaqan caado oo ay Shiinaha ugu rajiyaan nasiib wanaagsan carruurta yar ee u dhigata iskuulada. sidaad arkaysid dabeecaddu waa farshaxanka ugu wanaagsan adduunka. daabo quruxda aad ku cajiibka badan ee halkan ay ka samaysay dabaysha. ma jeclaan lahayd inaad halkan hore u gasho si aad u soo aragto gudaheeda? inta la isaga tegay gawaarida tartanka ee aan naqaanay hadda waxay maraysaa in lagu tartamo gawaari aad u yar oo lagu hago hurmuud, kuwaas oo ay xitaa u joogaan dhinacyada wadada tartanka farsamayaqaano dib u cilad bixiya. weligaa hore ma u aragtay biyo u qubanaya habkan?
lo'da waxay ka soo baxsatay maanta halkii ay ku xirneed ayadoona weerartay shaqaalihii shirkadda balse ugu dambeyntii waa lagu guulaystay in gacanta dib loogu soo dhigo. badmaaxatada u dhalatay dalka Vietnam waa kuwa la yimid hal abuurkooda gaarka ah maxaa yeelay waxa ay ku kaxeeyeen lugahooda dunidii usha ee u baahneed inay iska caawiyaan wadideeda laba qof. matoorada ku xiran duumaha yar waa kuwa aan la yeeraysan karin awoodooda. ma ogtahay in ciidda buuraha ka soo daadata ay ka daran tahay barafka ka soo daata buuraha? sidoo kale ma ogtahay gudul ordida looxa ciidda ee ciyaartan ay ka xamaasad badan tahay midda lagu dheela barafka? haamankii aadka u waaweynaa ee gaaska hadda wixii ka dambeeya ma noqon kuwa loo baahda ayadoona loogu takhalusay ugu dambeyntii sidaan. maanta waxa uu rinjiyeystay baaskiilaha halkii uu baakinka baaskiilkiisa dhigan lahaa taasoo kolkii hore uu dhib ku qabay. cabsi weyn ayay ka sii qaadi doonaan dadka aan qaadan koofida difaaca madax gashiga ee mootada markii ay ku sii arkaan xaaladdan. waxaynu joognaa jasiiradda Korsika ee dalka Faransiiska si aynu u aragna haddii aad la dhibaatoonayso jirida cabsida ku jahwareeridda socodka duumaha iyo maraakiibta dul sabeeya biyaha badda. sidoo kale halkan ayaan ku tijaabinaynaa haddii aad qabto foobiyada ka cabsashada sawirka gaar ahaan dadka qaba foobiyadan waa kuwa uu dhibo iftiinka cad. waa qaadashada waqti cajiib ah oo wata hardankiisa in laga kulumaysto biyaha Florida. There is a gator on my line. No way. No way. No way. Oh my God. Oh my goodness. Oh. aragtidaada waxaan maxay kula muuqdaan? tani waxaan dhihi karnaa oo kaliya waa almiitada sameynta loogada shirkadda gawaarida ee Volkswagen. ciyaartan marka la fiiriyo xamaasadda ay leedahay waxay u qalmataa in lagu soo daro ciyaaraha tartamada Olympics-ka. rakaha waa mid aad u yaqaan sida loogu dabaasho biyaha
shirkadda soo saartay ookiyaalahan waxay u tahay muuqaalkan ii dheh wanaagsan maxaa yeelay maanta waxaynu ogaanay xirashada ookiyaalaha ay soo saaraan inuu inoo suuragelinayo arkidda kalluunka ku hoos jira biyaha hoostooda taasoo inoo fududeynaysa meesha habboon in laga kalluumaysto. inkastoo ay aad u yar tahay buundadan balac ahaan haddana waa mid u dulqaadatay gaarigan aadka u weyn ee dulmaray dusheeda. halkan ayuu noogu egyahay muuqaalkeena maanta. fadlan haddaad ka heshay muuqaalka like saar kana soo dhiiba aragtidaada hana hilmaama inaad kanaalka caalam subscribe saarto si aad ula socotid muuqaalada noocan oo kale ah ee soo socda. alla hadduu idmo la kulan dambe oo xiiso leh.